waftigii uu hogaaminayay Islaam Bashiir Islaan Cabdulle Islaan Faarax ee nabadaynta Ballibusle iyo Buubi u socday ayaa gaaray deegaanka Buubi halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waftiga Islaamku uu hogaaminayo qaar ka mid ah bulshada deegaanka Buubi ayaa ka hadlay soo dhaweynta Islaam Bashiir Islaan Cabdulle waxaanu Buubi ku soo dhaweynaynaa Islaan Cabdulle Islaam Bashiir Islaan Cabdulle waftiga uu hogaaminayo baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu joognaa Buubi waxaanu leenahay reer Buubi annagoo afkooda ku hadlayna Islaan soo dhawow waxa ku soo dhawaata gacmo furan waxa ku soo dhawaata kalkacayl waxa ku soo dhawaata reer Buubi oo is cafiyay reer Buubi oo gacmaha is haysta reer Buubi oo walaaloobay reer Buubi oo ka gudbay malxaladii foosho xumayd una gudbay marxalad aad u qurux badan ku soo dhawow Islaan waxa la qaatay gudoonka Islaamka xaqiiq waxa muuqda isbedel weyn haddii muwaafaqo la helo khayr badan baa la helaa wakaan raxmadii ilaahay ay curatay saaka iyo shalay iyo daraajawigu waa kala duwan yahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay dhib dambana inuusan noo keenin khilaaf dambana noo keenin midnimada iyo wanaagga maanta muuqadana aynu daa'ino waxaynu isugu nimid inaan soo dhaweyn Islaam Bashiir Islaan Cabdulle Islaan Faarax iyo waftiga hogaaminayo waxaynu hore ugu nimid oo gudiyada hadda raggan hadlaya u joogeen wacyigelin buuxdo oo dadka la wacyigeliyo dadkina way qaateen wacyigelin waa qaateen dadka deegaamada joogaana si buuxda u qaateen nabadda walaalihi wax ka dhexdhaceen oo wada deganaa Buubi iyo Ballibusle inta wadaagsan deganaa si buuxda mugle aan uga mahadnaqnay ilaahay weynaana abuurtay iyagaba bay u qaateen nabadii oo mar haddii wixii dhibka dhacay laga heshiiyey wixii kale waa laga heshiinayaa insha Allah waalba u fariisanaysa wax garad daaqsinta wada ilaashada ceelkaas wuxuu ka mid yahay Islaam Bashiir Islaan Cabdulle dhagax dhigay ceeshii wanaagsan ka jidhuu ka mid yahay wax fackaala kaba leh sida hadda aad u wada degantiin baa u wada degaysaan tabta aad u wada degantiin hadda baad u wada joogtaan baa u wada degaysaan hadduu ilaahay aqbalo baabulkiisa waa wada maamulanaysaan xoogaa durkintii Maxamed Cumar kale durkiyo la yiraahdo waxba balihidin baanu ka caroonay soo noqonay annaguna waxa leedahay ilaahay haynu guuleeyo waxaan u malaynayaa Mahad Faarax iyo Maxamed Cumar Basino mahad toddoba soo socdaa toddoba ninkii soo socday baa annagoo Maxamed Cumar hadda qoorta isu galay weynii ducaynayna talada iyo tabarada iyo tawfiiqda hawaayinina haddii ilaahay ku rooyaa nabadda la qaato la heshiiyo gacmaha la isqabsado wax allaala oo dhacay in laga walaaloobo cafi aliya masaabax raxmada khayr qabta ilaahayna siiyay shalay iyo maanta jawigu waa kala duwan yahay shalay qorrax bay ahayd maanta roob iyo cadar weeye ilaahay waynoo siyaadinaya qabuulkii ilaahay baa dhacay qabuulkaas maanta dhacay waxa la rabaa inaan ilaahay waa ina jecel yahay ilaahay waa ina wanaajiyay wanaagga ilaahay ina wanaajiyay inaan ka dambayno oo amaamirta ilaahay aan qaadanaba la inaga raba rasuulku wuxuu leeyahay taqullaha haytha ma kunta meel alla meeshaad ku sugan tahay ba ilaahay ka baq taqullaha haytha ma kunta meel alla meeshaad ku sugan tahay hadaad barwaaqaysan tahay hadaad kulushahay hadaad murugaysan tahay hadaad farxadsan tahay hadaad jamaacad la joogto kaliya hadaad tahay ilaahay ina ka baqdo watabici sayyi'ata bil hasanati tamhuha haday xumaan ka dhacday oo khalad ka dhacay xumaanta ka dhacday mayd oo wanaag ku mayd way tiraysaa saasuu rasuulku leeyahay alayhi salaatu wasalaam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan taasu waa muamaladii khaliqa iyo muamaladii khaliqa iyo makhluuqa u dhaxeeyay muamaladii makhluuqa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan buu rasuulku leeyahay alayhi salaatu wasalaam dadka waxaad kula dhaqantaa dabeecad wanaagsan oo xalaawa oo macaan oo manfaco leh ummadda nabadgeli dhiigooda nabadgeli maalkooda nabadgeli naftooda nabadgeli ilaali markaad adigu dadka ilaaliso ilaahay baa ku ilaalinaya waxaan ku soo dhaweynaynaa cuqaasha kaleeto oo meel walba ka timid oo Cumar Maxamuud leh oo haddii hadda dad kale joogo oo aan Cumar Maxamuud ahayn waaba joogaaye ayaga laftigoodana waanu ku soo dhaweynaynaa cuqaasha meesha fadhida carab badan bay isaga yimaadeen waxayna isaga yimaadeen qulqulootoyinkii laba filaanka ahaa annagu dad Cumar Maxamuud oo la kala hor seexday oo qoryo isu haysta oo kala shiran oo isku duulaya oo guryaha kala leh 9 baa jira anigu mana arag mana maqal wax jiri doonana ma aha waa janjeersatay ma qubanin ilaahay wuxuu keenay caqligeedii dadkeedii wax garadkeedii
isimadeedii culimmadoodii nabaddoonnadoodii cuqaashii oo meel walba isaga timid iyo taladii la khulaaseeyey in la maro carradii qulqulatooyinku ka dhaceen la tago islaamku tago islaamku islaan reer hebel maaha islaan reer mahad maaha islaan faarax shirwac maaha islaan shirwac maaha islaan cigalla maaha cumar maxamuud dhaafi waa islaan mudug asaga islaan bashiir islaan cabdille islaan faarax islaan aadan dadkan waxay u hayaan dawlad waxaa iska xumaaday ismaqalkii iyo kala dambayntii laakiin nin waliba meesha uu lahaa buu joogaa soo dhoweyn kadib ayaa wafdiga islaam bashiir islaan cabdulle islaam faarax waxay kulan la qaateen bulshada deegaanka iyagoo goob fagaara ah kula hadlay bulshadii soo dhoweynta wafdigan ka qayb gashay runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad guud oo dhanba leh oo halkan isugu keenay si nabdoonaan ah oo waxa weeye intaanoo khalqiga isugu keenay runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celinaynaa marka xiga waxaan si weyn ugu mahad celinayaa bulshada deegaanka Boobi sida quruxda badan noo soo dhaweeyeen wafdigu hogaaminaya islaamku aad baan kaga mahad celinaynaa wanaaga muujiseen isku duubnida ah muujiseen iyo sida guud ah isku soo baxdeen ba aad baan kaga mahad celinaynaa runtii waa sawir qurux badan oo inuu mar kasta muuqdaahi ay waajib inuu ku tahay weeye ilaahay idankiisna inuu saa u muuqdaa waa rajeenayaa kaliya maanta waxaan isugu nimaanaa halkan waxa weeye isbaraarujin uun hal dardaaran baan rabaa inaan bulshada deegaanka uga tago dardaarankaas wuxuu yahay war bulshooy ciddii wax garad ah taladoodu waajib inaad iskaga dhigtaan inaad maqashaan ilaahay baa mahad leh ina kulmiyey nabad iyo wanaag isugu keenay waxaan idinka mahad celinaynaa reer Boobi iyo deegaamada ku dhow soo dhaweyntii aad soo dhaweyseen oo noo soo baxdeen oo si sharaf leh oo qiimo leh aad noogu soo dhaweyseen magaaladan aad baan idinka mahad celinaynaa khayr Allah idin siiyo intaas ka bacdi waxaynu isugu nimid oo ilaa shalay aan deegaamada u joognay waxaan u malaynayaa waa la og yahay oo waxaad og tahay ma kuu sheegaa weeye waxaan u nimid arrimihii halkan ka dhacay shaqaaqooyinkii dadku ku dhinteen dadna ku dhaawacmay iyo wixii ay ka dhasheen intaba xalintoodii ilaahay mahadi dadaal dheer ka bacdi oo muddo dheer qaatay qaybihii ugu horeeyay waa lagu guuleystay shalay goor hadaha oo kala ah ama ku dhow waxaan dhagax dhignay ceelkaas hadduu bilowdana wixii hadda ka dambeeya waxa la gudagali doonaa waxyaabihii dhacay xalintoodii ama ha noqdeen kuwii deegaamadan ka dhacay ama ha noqdeen kuwii deegaamo kale ka dhacay intaba waxgaradkeedii iyo culimadeedii iyo intii ay khusaysayba diyaar bay u yihiin arintaas inay dhaahiyaan oo xalliyaan haddii ilaahay idmo idinkana waxaa la idinka rabaa inaad qayb ka qaadataan dadku waa isku dhacayaa isagoo yar oo aad u tiro yar bini'aadanku isdilay maalintaas wixii ka dambeeyay ilaa hadda aan joogno dilku waa dhacayaa ama kama ha u dhaco ama kas ha u dhaco dadkii markaa joogo waxgarad ah waxaa looga baahan yahay wanaag iyo islaax inay arintaas ku galaan tiibaa hadda socota intii marka dhimatay ilaahay ha u naxariisto
guryihii iyo ehelkii ay ka baxeenna cawil khayr qaba allah siiyo intii dhaawacantayna allah caafiyo intii isku khilaaftay oo hadal ku dhex marayna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu wanaag iyo kalsooni ugu bedelo dadku ehel weeye wada dhashay qaraabo ah isku deegaan ah abti iyo xidid iyo adeer isu ah dad xabad isu quura maaha arrimahaasi markay soo bateen noocaas ah sidii hadda laga warbixinayay gobolka Mudug shirweynaha ka dhacay ballaaran oo reer Mudug isugu yimid iyagoo aan reer ahayn waxayna go'aansadeen qofkii qof dila oo walaalkii xabad u quura ina shishada la marsan ee la mudo qofkii xaq u lahaa isagoo hadduu cafiyayo hadduu ma ka qaadanayo hadduu qisaasanayo isaga ikhtiyaar loo siiyo arrintaas waxaa la rabaa inaad ogaataan waana filayaa warkaasi inuu idin soo gaaray go'aan guud oo gobolka Mudug weeye deegaamadu waa ballaaran yihiin cid walba oo waxgarada meeshay joogto wixii ka dhacana go'aankaas ku dabaqdo hadii Ilaahay idmo si aynu ammaan u helo si aynu u kala nabad gallo si hubkaan faraha badan oo gacanteena ku jira oo duruufo keeneen inaan qaadanno inta aynu ka helayno dawlad xoog leh oo dadka ammaankooda damaanad qaada hubkan ayna ka ururisa waxa aynu ku nabadgali karnaa waa intaas waana la faafiyay oo meelo badan baa laga sheegay arrintaasi intaa weeye waxaan idin rajaynaynaa khayr dhammaantiis ilaahay khayr ha idin siiyo dambigeennana allah dhaafo meelaan joognaba allah ina ku nabad yeelo wixii culaysa iyo wixii dhiba nooc kasto ay yihiin allah ina ka qaado roob khayr qabana allah ina siiyo calaamadihii roob baa muuqdee ilaahay roob khayr qaba oo aan aafe iyo dhib lahayn oo caafimaad wata oo xooluhu inuu ku cayilaan ilaahay hayna siiyo ilaahay nabadgelyo hayna siiyo ilaahay muwaafaqo khayr qabta hayna siiyo